garan maysid cibrigaagu inuu dheeraanayo inuu gaaban, garan maysid khaatimadaadu waxay noqon doonto. laakiin haddaa waxaad garanaysaa inaad jidkaa iska saaraatid oo ku toosnaatid, lacalla adigoo qumanuunin mar naftu kaa baxde. lacalla mucawiqaadka waxyaabaha dadka jidka weydaarayaana waa tiro badan yihin. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa maalmaha dambeeya ayaamu sabriga la yidhaahdo diinta qofka haystaa uu kontan idinka idinla mida la ajar yahay baa layidhi. waxaanu ku tilmaamayaa sidii nin dhuxul daba haystoo kale u ekaan doonaa. yacni waxaa looga dan leeyay dhuxusha daba la sheegay waxa weeyaan tacab iyo feejignaan tiro badan bay u baahantay. ilaahina qur-aanka wuxuu inoogu leeyahay faاstaqiimuu ilayhi wastakfiruuh, waryaadheen xagga rabbi u toosnaada. faاstaqiimuu ilayh wastakfiruuh, wixii dembi idinka dhacana ilaahay subxaanaه wa tacaala dembi dhaaf weydiista. qur-aanka 2 meeloodoo ka mid ah ayaa waxaa ku soo arooray dadka ammaan la ammaanayo iyo ajarka ay leeyihin weynidiisa si laynoo jeclaysiiyo. oo waa maxay? ina aladiina qaaluu rabbuna allah, kuwa yidhaahda baa ilaahay yidhi allah noo rabbiya, rabbigayo waa alle. uma istaqaamuu baa ilaahay yidhi, dabeetana ku toosnaada weedha allah ii rabbiya. macnay sheegaysaa, macnaha ku toosnaada baa ilaahay leeyihi. kuwaas malaa'ig baa ilaahay ku soo dejinaya, malaa'ikatu raxma. oo maxay leeyihiin marka nafta laga qabanayo 2 shay baa qofka bini aadamka markuu dunida ka baxaya warwar ku haya. meesha uu ka tegayaa warwar bay ku haysaa. oo talow carruurtii iyo reerihii iyo dadkii iyo maxay noqon? ilaa adduunku isku dhamma ma lehe. maraad sileeday shaqadii waa dhammaysay yaa nafta kaa qabta ma jirto. mar kasta oo wuxuubaad sileeday war waxbaad dayacane, talow siday noqon kuwani. waxaad kaloo ka warwaraysaa oo kaaga sii daran, war talow maxaa kaa horeeya? war wixii aad samaynaysa alla ma kaa aqbal? war ma kuwa naartaad noqon mise kuwa jannadaad noqon? xaalkaas siduu noqon? warwar baa kugu jira. ilaahay wuxuu leeyahay dadkii toosnaan jiray malaa'ig baa u imanaysa u bushaaraynaysa. maxaa loogu bushaaraynaya? anlaa takhaafuu walaa taxzanuu, ha cabsanina oo waxa idinka horreeya ha ka cabsanina baa laleeyahy. kuwa nabadgala ka midti. ha tiiraanyoonin oo wixii aad ka timi ha ka murugoonin baa laydhahaa. rabbigood bay leeyihin waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun, jannadaan idiin ballan qaaday ku bushaaraysta. fii suurati alaxqaafna sidoo kale baa ilaahay leeyihi ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu, kuwa yidhi allah noo rabbiya ee ku toosnaaday falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun baa ilaahay. cabsiyo korkooda maha oo waxa soo socda kama cabsanayaan. walaa hum yaxzanuun, murugiyo tiiraanyana ma hayso oo wixii ka tegey ka murugoon maayaan. ulaa'ika asxaabu اljannati khaalidiina fiiha jazaa'an bima kaanuu yacmaluun baa ilaah yidhi. kuwaasi waa reer janno, waana ku waarayaan iyadoo lagu abaalmarinayo wixii ay soo camal famirayeen daraaddeed sababtii. waxaa ilaahay qur-aanka inoogu sheegayaa taasi waa aakhiro iyo waxa la helayo adduunka. ilaahay wuxuuna leeyay waan low istaqaamuu cala aطariiqati laasqaynaahum maa'an gadaqa linaftinahum fiih waman yucrid can dikri rabbihi yasluku cadaaban sacada. hadday ku toosnaadaan baa ilaahay leeyay jidka rabbi, hadday ku toosnaan lahaayeen waxaanu ka waraabin lahayn baa ilaahay leeyay biyo badan oo yacni badhaadh iyo barwaaqaanu ku noolaan lahay. roob iyo abaar iyo mashkilada waxaynugu itixaamay, toosnaantii baa laynaga waayay. haddaad toosnaan lahaydeen baa ilaahay leeyihi waa laydin badhaadhayn lahaa, biyaha waa ka dhergi lahaydeen. laakiin adduunina mar kastaba imtixaan ya haddana alla waxaynu noo sheegay marka layna dhergiyana ilaahay wuxuu yihi linaftinahum fiih, isaga laftiisu waa imtixaan kale. inta badan bini aadamka muslimka ahay imtixaanka dhibta ah wuu ku toobad keenaa, faqrigiisa u muuqda. marka dhibtu ka qabsato yaa rabbidaa badata, dherigta si rabbiba waa la ilaabaa. inta badan labada imtixaanka dherigta khatarsan.
imtixaanka dheragta kibir baa bilaabma iyo qooq iyo balacab iyo kibir oo dhan baa bilaabma. soomaalidana waa taqaaneenoo xataa colaadahooda iyo dagaaladoodu markay abaartu dhacdo way isu nasan jireen iyo allah bay odhan jireen. marka gugu u da'ana rabshadaa bay bilaabi jireen. ilaahay wuxuu ina leeyahay markaas linaftinahum fiih waman yucrid can dikri rabbihi yasluku cadaaban sacada. ninkii ilaahay xuskiisa ka jeesta waxaa la marin oo la gelin cadaab adag fuuritaankiisu. haddaba ayuha alaxiba, ilaahay wuxuu ina leeyahay isagoo nebi maxamed la hadlaya 2 aayadood oo kale, fastaqim kamaa umirta. fastaqim kamaa umirta baa ilaahay nebigu ku yidhi, wastaqim kamaa umirtana fii suurati shuuraa bay ku jirta. fii suurati huud ilaahay wuxuu ku yidhi fastaqim kamaa umirta waman taaba macak walaa tadqow. u toosnow sidii rabbi ku amray. hadda waa nebi maxamed cidda lagu leeyahy. suuratu huud aayaadkan intaan laga warramin aayaadka ka horeeya wixii nebiya soo qabsaday baa ilaahay ka warramay. nebiyullaahi nuux, nebiyullaahi ibraahiim, nebiyullaahi saalix, nebiyullaahi shucayb, nebiyullaahi luut, nebiyullaahi muusa. waxaasoo ambiyaaba qisaskooda ilaahay kaga warramaya. nebiyullaahi huud iyo tolkood wixii kala qabsaday. markii ambiyadaa laga warramay iyo wixii lagu sameeyey iyo wixii la kulmay iyo waxay dhib arkeen ayaa ilaahay nebi maxamed markaa awaamir siiyey. nebi maxamedna waxaa la yidhi fastaqim kamaa umirt waman taaba macak walaa tatqow innahu bima tacmaluuna basiir. u toosnow baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala sida rabbi ku faray. adiga ayaa inta kula socotee ilaahay u toobad keentay. nebi maxamed waxaa laga sheegaa calayhi salaatu wasalaam inuu yidhaahdo shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa qabla almashiid. wakhti ciro anigu aan gaadhin, timan ciro aan badnayn baa nebiga ku yaala, laakiin nebigu wuxuu leeyahay waxoogaaga kanna waxa iga soo saaray waxa i cireeyey huud iyo walaaladeed. wa fii bacdi riwaayaatna wa akhawaatuha min almufasal. qur-aanka hoose riwaayo kalena waxay tilmaamaysaa shayabatnii huud waalwaaqicatu waalmursalaatu wacama yatasaa'aluuna waida shamsi kuwirt. waas baa i cireeyey buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. qur-aanka uu sheegayaa qiyaame iyo waxa dambeeyaa u badan wuxuu ka warramaya. waxa dambeeya aakhiro dee waa maalinta ilaahay ku tilmaamay wildaanku kuwa dhashay inay ciroobayaan, shayban inay noqonayaan. haddaba kuma qofka la leeyahay toosnow man huwa innahu aclamu alkhalqi billaah. waa dadkaba ninkii rabbi u yaqaanay ee ugu cabsi badna ayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay maxay? toosnow. wastaqim kamaa umirt walaa tattabic ahwaa'ahum waqul aamantu bima anzala allahu min kitaab waumirtu liyacdila baynakum allahu rabbuna warabbukum lana acmaaluna walakum acmaalukum laa xujata baynana wa baynakum allahu yajmacu baynana wa ilayhi almasiir. waxay culammadu dhahan waa 10 jumladood oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu amrayo. ayuha alaxiba, toosnida iyo qumanidu jawaamic alkalimka nebi maxamed la siiyey calayhi salaatu wasalaam. ilaahay nebi maxamed uu ka sheegay jawaamic alkalim. jawaamic alkalimka waa maxay? erayo kooban ayuu macno ballaaran ku sheegaa. sidan casrigan dadku khudbadaynayaane hadalka badan akhrinayaan nebi maxamed ma ahayn calayhi salaatu wasalaam. war kooban oo dadkuba intuu qaybo xambaari karo laakiin macnahoo dhan sida buu sheegi jiray. waraadu kooban. nin baa u yimi sufyaan ibnu cabdalla athaqafi, saxaabi la odhan jiray. dabeetana wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow qul lii fi lislaami qawlan laa as'alu canhu axadan bacdak. ilaahay rasuulkiisiiyow islaamnimada war iiga sheeg aanan qof dambe weydiinin. wa fii riwaaya hayrak, islaamnimada wax iiga sheeg igu fillaata waanan cid dambe warkiisa u baahanin. nabigu calayhi salaatu wasalaam waa su'aal adag.
inta qof kuu yimaado ku yidhaahdo diinta wariga si aanan wax dambana cid weydiinin in ugu filaato uu maanta ii sheeg haddii lagu yidhaahdo meelaad kaba baadi doonto garan mayse laakiin nebi maxamed maadaama ilaahay jawaamiculkalim siiyey wuxuu sheegay erayo kooban oo ninkaasi wuxuu doonayay oo dhan xambaara wuxuu ku yidhi qul aamantu billaahi uma istaqim buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaa ilaahay baan rumeeyey kuna toosna warkaa marka intaa unbuu nebigu sheegay soo ma rabtid war inaan ku faro islaamnimada aanad cid dambeba wax weydiinin warkaasi wuxuu yahay buu nebigu yidhi qul aamantu billaah dheh ilaahay baan rumeeyey kadibna ku toosnow ku qumanow warkaasi raac karaamada ugu weyn dadka badh baa waxay dadku had iyo goor awliyada iyo waxa marka warramayaan ninkii ducaal alla ka aqbalo waxay yidhahdeen waa weli karaamo hebel baa ka dhaca karaamo waxa u weyn in ilaahay kugu karaameeyo inaad toosnaato acdam karaama waa luzuum alistiqaama awliyanimadaada ugu fiican ee ilaahay uu ku siiyaa waa inuu ruux quman kaa dhigo ruuxaan weecweecsanayn oo waddada kolba ka baxayn afaman yamshi mukibban calaa wajhihi ahda am man yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo inala hadlayo inoo talinaya xadiis saxiix wuxuu ku tilmaamaya istaqiimu walan tuxsu toosnaada mana dhammaynaysaan buu nebigu leeyay yacni ma awoodaan inaa aydan in yarna weecweecan laakiin toosnaada waaclamuu waxaa ogaataan anna khayra acmaalikum alsalaa acmaashiinna waxa ugu fiican camal la sameeyo bacda tawxiid salaad baa ugu fiican buu nebigu leeyay hadday salaadi kaa dayacanto diini kaa dayacantay ogsanow istiqaamo waad ka fog tahay hadday salaadiba kaa dayacanto istiqaamo iyo adiga in dheer baa idiin dhaxaysa aayaadkii uu nebigu lahaa suuradduu lahaa way gaboojisaynaa waxyaabuu ku tilmaamaya waxaa ka mida ilaahay subxaanahu wa tacaala faastaqim kamaa umirta waman taaba ma maxaa ku jiri wa aqimi asalaata طarafay الnahaari wa zulufan min alleyl ayaa ka mid ah waxaa samaysaan salaad baa u fiican baa rabbi ayuu nebigu leeyay walaa yuxaafidu cala alwuduu'i ilaa mu'min weysana ma dhowrto ma ilaaliyo qof mu'mina mooyaane yacnii islaamnimada waxyaabaa ugu fiican waxaa ka mid ah inaan weysadu kaa jabin hadday kaa jabto inaad dib u weysaysato iswalba haddaad weysaysato iswalba haddaad gashay inaad soo weysaysato inaad daahir ahaataa daba nebigu wuxuu inoo tilmaamayaa istaqiimuu walan tuxsu toosnaada mana dhammaynaysaa xadiidka labaadoo bukhaari iyo muslim uu ku yaalla wuxuu nebigu yidhi saddiduu wa qaaribuu wa abshiruu saddiduu assadaad waa toosnaanta lafteedii ama isaabada wa qaaribuuna almuqaaraba alqasd maalan marka aad dhugtamayso dhugtanka soo ma taqaaniin rasaas ama waran marka wax la wada liishaamayo la dhugtamayo maxaynu samaynaa meel baa calaamad yar laynoo dhigaa ama waxbaa la dhigaa dadkoo dhan wuu toogtaa laakiin mostly waxay u badan tahay dhibicda santarkaa qof iyo labunbay ugu dhacaysaa haddayga xataa kuugu dhacdo kan labaad waxaa laga yaabaa inaad dhinaciisa ku dhufato nebigu wuxuu ina leeyahy war waxaa samaysaan dhugtankaasi sadidu marka hore ku day inaad halka toosan la heshid dee xaggaa ha isaga tuuri waranka ee meeshii lagu dhugtamaye la eego ku dhoweena xataa haddaad santarka la weydo maxay duleedkeeda hareeraheeda ha ku dhacdo haddaa sidaa yeeshaan buu nebigu yidhi dee bushaaraystana markaasuu nebigu wuxuu leeyahy waaclamuu annahu lan yudkhila aljannata axadan camaluhu ogaadana ninna camalkiisu inaanu janno geynin yacni jannada ilaahay waa ka qaalisantay xoogaa ka yaraynu samayno jannada ilaahay waa ka weyn addunyaa wa casharatu amhaaliha jahannamiyiin kuwa ugu dambeeya ee janno soo gala
ayaa waxay leeyihiin maxay adduunka iyo tobanlaabkii xagga hore raggii ka galay markaa maxay leeyihin acmaashaad shaqaysayna waa maxay 60 sano 50 sano aad waxoogaa wadwaday idan wax gooye maaha laakiin sabab bay u noqotaa saxaabadu markay yidhaahdeen walaa anta yaa rasuul allah oo xataa adigu camalkaaguna miyaanu janno goonin qaala walaa ana buu nebigu yidhi ila an yatagamadanii allahu bimakfiratin waraxma ilaahay inuu naxariistiisa igu daboolo oo dembigayga dhaafo mooyaane anigana ما حتى عمل كيغو مقوي واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل لكن وحي أكسونا تابو نبوي إلهي أكتيس عمل وحل لوغوش عليه كو اللي تشوكتيو استمرارية استقامة ثبات وحي كسقما أي إلهي أكتيس اللي لوغوش عليه هبير هذا أعمال شادوين تشوكتا نغط إذن أيها الأحبة وحلينا قرب السداد والمقاربة inaynu isku dayno inaynu barta asiibi karno inaynu ku biro yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah wa kunuu maca asaadiqiin ilaahay ka cabsada oo inta runta sheegaysa sidiiqiinta macooda ahaada inaynu ku biro min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila mu'miniinta waxaa ka mida baa ilaahay yidhi kuwa rumeeyey waxay ilaahay ballan la galeen oo ku dhintay iyo kuwa jidkii hayo waan waxba bedelin ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa falow sadaquu allaha lakaana khayran lahu hadday dadku run sheegaan iyadaa u khayr badnaan lahay kan run sheegaan waxay samaynayaan lain sadaqta allaha haddaad ilaahay u run sheegto ilaahayna waa kuu run sheegayaa baa layidhi ilaahay ballankiisa haddaa oofisaan isna ballankiina waa idiin oofinaya